Jamhuuriyadda Pakistan ayaa waxaa la sheegayaa in ay awoodda dhanka nuclear-ka ama madaxda gantaalaha xambaara sunta nuclear-ka ay kaga horeyso wadanka Hindiya, cadaawad fogna ay ka dhaxayso oo ay isku haystaan gobolka Kashmir. Dowladaha qaaradda Aasiya gaar ahaan Pakistan, Hindiya iyo Shiinaha ayaa la sheegayaa in ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay kor u qaadeen soo saarka ama bacriminta hubka nuclear-ka xilli caalamku uu dadaal ugu jiro wax ka beddelka cimilada kaas oo ay sababaan warshadaha soo saara hubka nuclear-ka. Warbixin ay soo saareen khubaro ka tirsan macadka caalamiga ah ee qaabilsan cilmi baarista arrimaha nabadda ee SIPRI ee fadhigiisu yahay Stockholm ayaa lagu sheegay in uu kordhay hubka nuclear-ka ee dalalka qaar adduunka ay haystaan. Waxaan wadamadaasi ka mid ah Shiinaha, Hindiya iyo Pakistan. Shiinaha waxa uu sameystay 30 xabo oo dheeraad ah oo hubka nuclear-ka ah marka loo barbar dhigo sanadihii la soo dhaafay. Tirada guud ee hadda uu haysto waa 350 xabo oo hubka nuclear-ka ah qiyaas ahaan. Halka Pakistan ay sameysatay 5 xabo oo cusub oo hubka nuclear-ka ah, tirada guud waxay noqonaysaa 165 madax oo hubka nuclear-ka ah qiyaas ahaan maadaama aan la ogaan karin midda dhabta ah. Hindiya waxa ay sameysatay 6 xabo oo dheeraad ah guud ahaan hubka nuclear-ka Hindiya waxa uu haatan gaarayaa 156 xabo sida lagu sheegay warbixinta macadka SIPRI. Hubkan waxaa loo aqoonsaday in uu yahay midka wax ugu gumaada ee khasaaraha ugu weyn u geysan kara caalamka. Qaraxyadiisa aad ay u awood badan yihiin, hal bambo oo nuclear ahna waxay baabi'in kartaa magaalo dhan. Qumbuladaha nuclear-ka waxay aad uga waxyeelo badan yihiin xitaa bambada ugu weyn adduunka ee aan lahayn kiimikada nuclear-ka. Waxaa jira wadamo badan oo ka mid tahay Iran kuwaas oo aan loo ogolayn in ay yeeshaan awoodda hubka nuclear-ka halka kuwa kalena ay haystaan. Su'aalaha maskaxdaada ka guuxaya ayaa ah muxuu yahay hubka nuclear-ka? Waa waxyaabo qarxa oo si xad dhaaf ah u awood badan, waxaana laga yaabaa in aad xasuusatid erayada atomis iyo atobis haddii aad soo dhigatay maadada sayniska. Kuwaas ayaana qayb ka ah hanaanka loo maro samaynta bambooyinka nuclear-ka ee waxgumaada. Bambooyinku waxay tamartooda ka helaan maadada atomisyada oo kala fida ama isu imaada oo si wada jir ah cuf u samaysa. Taasi waa sababta mararka qaar bambooyinka nuclear-ka loogu yeero atomic bomb. Hubka nuclear-ka waxa uu sii daayaa xaddi aad u fara badan oo shucaac ah, waana mid sababi kara waxyeelo badan. Sidaas darteedna saameyn waxay sii jiri kartaa xitaa marka uu qaraxa dhaco muddo kadib. Balse 2 jeer oo kaliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida inta la ogyahay, waxaana lagu dhuftay wadanka Japan sanadku markuu ahaa 1945 xilligaas oo uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Markaasi waxay bambooyinkan sababeen musiibo weyn iyo khasaare nafeed oo aan la qiyaasi karin. Shuucaaci ka dhashay bambadii lagu dhuftay magaalada Hiroshima waxa uu socday dhowr bilood, waxa uuna dilay dad lagu qiyaasay 80,000 oo ruux. Bambadii kale ee lagu dhuftay magaalada Nagasaki waxay iyaduna dishay in ka badan 70,000 oo qof. Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay nuclear-ka wali looma adeegsan dagaal kale inta la xaqiijiyay. 10 wadan ayaa hadda haysta hubka nuclear-ka, waxay kala yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Pakistan, Israa'iil, Kuuriyada Waqooyi iyo dabcan Iran. Su'aashu waxay tahay yaa samaysan kara bambada hubka nuclear-ka? Markii si guud loo eego, jawaabtu waxay tahay in uu samaysan karo qof kasta oo aqoon u leh arrimaha sayniska iyo chemistry-ga oo farsamada yaqaana, qalabkana haysta. Laakiin marka laga hadlayo in wadamada loo ogol yahay samaysashada hubka iyo in kale, jawaabta su'aashaasi waxay qaadanaysaa waqti dheer, waana sheeko adag. Waxaa jira wax loogu yeero is-afgarad xakamaynta hubka nuclear-ka oo loo soo gaabiyo NPT, kaas oo ah heshiis looga gol leeyahay in looga hortago faafitaanka hubka nuclear-ka iyo in laga qaado wadamada aan loo ogolayn si uusan gacanta ugu gelin wadamada Islaamka ee soo koraya. Tan iyo 1970 191 wadan oo ay ku jiraan Mareykanka, Ruushka, Britain, Faransiiska, Shiinaha ayaa saxiixay heshiiska ka hortagga hubka nuclear-ka. 5 wadan waxaa loo yeeraa dowladaha ku hubeysan hubka nuclear-ka
waxaana loo ogol yahay in ay haystaan hubkaasi sababtoo waxay sameysteen oo ay tijaabiyeen ka hor inta aan heshiiska NPT la dhaqangelinin 1 bishii January ee sanadkii 1967. xitaa iyadoo dalalkan ay haystaan nuclearka ay qayb ka yihiin, iyagu qudhooda waxaa laga rabaa in ay yareeyaan xaddigiisa ay kordhiyaan, loomana ogola in ay weligood iska haystaan. laakiin marba marka ka dambeysa waxaynu aragnaa gantaalaha qaarad ka qaarad isaga goosha ee Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Ruushka ay tijaabiyaan. Israa'iil oo weligeed aan qiranin ama aan beenin in ay haysato nuclear, Hindiya iyo Pakistan midna qayb kama ahan heshiiskaasi, mana aysan saxiixin. Kuuriyada Waqooyi waxay heshiiskaasi ka baxday sanadku markuu ahaa 2003. Jamhuuriyadda Iiraan waxay barnaamijkeeda nuclearka bilowday sanadku markuu ahaa 1950. markastana waxay ku adkeysanaysay in tamarta nuclearka ay samaysanayso ay tahay mid nabadeed oo kaliya oo isku difaacayso. laakiin waxaa jiray shaki laga qabo in ay si qarsoodi ah u samaysanayso hubka nuclearka. arrintaas waxay keentay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay Mareykanka iyo Midowga Yurub ay cunaqabatayn ku soo rogaan sanadkii 2010. tani waxay keentay in sanadkii 2015 ay heshiiska galaan Iiraan iyo wadamada kale ee quwadaha caalamka lagu sheego, kuwaas oo ay Iiraan ku saxiixday heshiis dhigaya in ay yarayso hubkeeda nuclearka. laakiin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi gaashaanka u daruuray bishii May ee sanadkii 2018. xilligan aynu taaganahay dalalka reer Yurub waxay Iiraan ku cadaadinayaan in aysan heshiiskii u hoggaansamin. sidoo kale markii ay sanadkan cirka isku shareertay xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan, madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray in Iiraan aan loo ogolaan doonin in ay yeelato hubka nuclearka inta uu isagu madaxweynaha yahay. kadib markii ay caro ka dhalatay dilkii Mareykanka uu magaalada Baghdad ugu geystay generaalkii reer Iiraan Qaasim Suleymani, Iiraan waxay sheegtay in aysan u sii hoggaansami doonin xadididda qayb ka mid ah heshiiskii ay caalamka la gashay, waxa ayna kordhisay soo saarka hubkeeda nuclearka. waxaa mustaqbalka la damacsan yahay in hubka nuclearka laga baabi'iyo guud ahaan dunida, walow saameyntii hubka nuclearka ay bedeshay dayuuradaha daroonista ee aan cidina wadin. run ahaantii tirada bambooyinka nuclearka ee dunida taala waxay hoos uga dhacday 70% oo ay ahaayeen sanadkii 1986. maanta waa 14,000 oo bambo, waana qiyaas ahaan maadaama aan la ogaan karin tirada dhabta ah, walow hubka nuclearku yahay mid aad loo xakameeyo oo xitaa shaqaalaha ka shaqeeya aan loo ogolayn in ay u baxaan meelaha fogfog iyo meelaha xafiisyada ka baxsan. Mareykanka, Ingiriiska iyo Ruushka waxay dhammaantood hoos u sii dhigeen sida ay sheegeen xaddiga ay hubkaasi ka haystaan, laakiin waxaa la aaminsan yahay in Shiinaha, Pakistan iyo Hindiya iyo Kuuriyada Waqooyi ay samaysanayeen bambooyin dheeraad ah sida uu sheegay ururka saynis yahanada reer Mareykan. bishii Juulay ee sanadkii 2017 waxay u muuqatay in dunidu ay hal tallaabo u qaaday sidii looga xoroobi lahaa hubka nuclearka kadib markii ay in ka badan 100 wadan saxiixeen qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo dhigayay in si wadajir ah loo baabiyo hubkaasi loona mamnuuco, walow qaramada midoobay ay ku shaqeyso ajendaha Mareykanka. laakiin dalalka ku hubeysan hubka nuclearka ee kala ah Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka ayaa horjoogsaday hirgelinta qaraarkaasi, kuwaas oo doonaya in caalamka ay ka yeeshaan sidii ay doonaan. Ingiriiska iyo Mareykanku waxay sheegeen in qandaraaskaasi uusan damaanad qaadi karin amniga dunida maadaama nuclearka uu udub dhaxaad u ahaa ilaalinta nabadgelyada caalamka muddo ka badan 70 sano. nabadgelyada caalamka oo ay kala jeedaan danaha gaarka ee reer galbeedka. halka dalalka Mareykanka iyo Ingiriisku ay sheegaan in ay yareeyeen bambooyinka ku jira bakhaarradooda hubka nuclearka, haddana khubaro ayaa sheegaysa in ay sii xoojiyeen awoodda bambooyinkaasi ay leeyihiin. Ingiriiska ayaa sii casriyeysanayay nidaamkiisa hubka nuclearka muddooyinkii la soo dhaafay. Mareykanka waxaa laga yaabaa in uu lacag dhan $1 trilyan u adeegsado sidii uu u kordhin lahaa awoodda nuclearka ilaa sanadka 2030 ama 40. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sii wadaa tijaabinta iyo horumarinta bacriminta barnaamijkeeda nuclearka iyada oo gantaalo tijaabisay dhawaan. sidaasi awgeed inkastoo dunidu ay ku sii yaraanayso tirada bambooyinka nuclearka,
dowladda Turkiga ayaa iyaduna dadaal ugu jirta sidii ay ku samaysan lahayd hub nuclear ah waxaana ay qandaraas kula jirtaa dowladda Ruushka waxaana Turkiga loo dhisayaa warshad samaysa nuclear-ka oo lagu magacaabo Akuyu taas oo la doonayo in xariga laga jiro sanadka 2023